Bismillahi Rahmani Rahim. Ustaad Abdulfataax kuna idin waday The Right Manager. Okay, waxaa isku barbardhigtaa ood kala saartaa theory motivationka. Okay, mid aan qaadan. Abraham Maslow need ayaa jiro. Ninkan Abraham Maslow wuxuu soo saaray the most wide known theory of motivation ayuu soo saaray. Waxyaalaha dadku badana ay garanayaan oo ay ku dhaqmaan ayuu soo saaray Maslow. Maslow wuxuu soo saaray hierarchy Abraham Maslow hierarchy waxa waaye waa meelo kala sareysa ayaa hierarchy sida sawirkan ayaa hierarchy. Okay, Maslow intaanu need ayuu soo saaray. Wuxuu yiri psychological need ayaa jiro psychological need wax weeyaan cuntadii iyo cabitaankii iyo qofka dharku xiran lahaa iyo inuu u baahan yahay qof wax la wadaago iyo other physical requirements iyo waxyaalo kale. يعني psychological need ayuu dadka leeyahay ayuu yiri psychological need waxay dadku u baahan yihiin oo leeyahay meel ay seexdaan iyo waxay cabaan iyo ayuu u baahan yihiin oo leeyahay waa kowtaas. labo safety need ay dadka leeyihiin ayuu yiri safety need ay dadka leeyihiin waxa weeyaan security iyo protection in la ilaaliyo physical ahaan iyo emotional ahaan in waxyaalaha dhibaya ahaan waxyaalaha dhibaya dhan in laga ilaaliyo ayay leeyihiin. saddex social need ay leeyihiin inay dadka dhaxgalaan oo wax aqbalaan friendship yeeshaan saaxiibtinimo iyo wax yeeshaan ayay leeyihiin. esteem need ayay leeyihiin oo laba qayb loo qaybay internal esteem oo ah oo qofka respect la sameeyo oo achievement horumar gaari karo ayuu leeyahay. external ayaa jiro oo qofka in uu recognition garasho lahaado iyo attention oo iska wax walba iska ilaaliyo ayuu leeyahay qofka. wuxuu kaloo leeyahay self actualization oo ah inuu qofku rabo growth horukac iyo achievement his potential waxa inuu wax kordhiyo oo sar u qaado inuu leeyahay. marka need kan oo dhan dadku way leeyihiin ayuu leeyahay. marka Abraham Maslow waxyaalaha uu asaga u arko in aadka loo fiiriyo waa psychological need iyo safety need. inta kale waa dadka ayaga sameeysan kara ayuu leeyahay. yani markii shaqada la fiirina motivationka wuxuu yiri managers use Maslow hierarchy to motivate employee by satisfying employee need. wuxuu isticmaali karaa Maslow hierarchy ayuu isticmaali karaa qofka managerka the right manager waxa laga rabaa inuu Maslow isticmaali karo. okay maxaa because the theory says wuxuu leeyahay theory-giisa once a need is sustainably satisfied markii oo needka la daboolo qofkan needkiisa markii la daboolo waxyaalaha uu u baahan yahay shaqaalaha marka la daboolo the individual is no longer motivated marka to satisfy that need. wajida asagiyaa marka qofku motivation galaya needskiisa marka la control qofka oo wuxuu rabo la siiyo la qanciyo managers marka need to understand the need levels of their employee. managerku waa inuu gartaa meesha uu qofka ka liito needka uu qofka ka liito and focus on satisfying needs markaas oo laga rabaa inuu xoog saaro fiir marka qofkani psychological meesha uu ka dhiban yahay fiirnaysa shaqaalaha ma cuna la'aan hayso ma lacag la'aan hayso ma kadibna waa haddii lacag la'aan ay hayso waad siinaysa miyuu baqanayaa meel security la haynaysa waad ilaalinaysaa naftiisa. social need dadkii miyuu dhexgalay acceptance waxa ka caawinaysa waxa siinaysa training iyo waxa siinaysa waa qancinaysa qofka training iyo career development iyo meelo badan oo u diraysa oo sidoo wax badan soo barto bulshada dhexgalka iyo waxyaalo badan soo garto. marka yani muhiimadu waxay tahay qofka haduu growth u baahan inuu korone wax kala qabsadana wixii kale uu qabsan lahaa siinaysa wax qabso ayaad leedahay ani laakiin shardi ila gal inay ila shaqeynaysid waxana waa ku qabanaya saas oo kale. heerka uu ka liito qofka ee uu jecel yahay hadana in laga kabo ayaad fiirinaysaa as a manager ayaad fiirinaysaa. okay hierarchy-gan marka waxa u hooseeya safety iyo psychological need ayaa hooseeya meelaha ay dadka ka liitaan waa labada meel psychological cuntadii meesha uu saxan lahaa iyo cabadii iyo safety noloshiisa iyo wixiisi labadaas ayaa wuxuu leeyahay ayaa ugu daran. wuxuu leeyahay marka Maslow wuxuu leeyahay labada ugu daran ee dadka in laga qabto u baahan ama in laga daboolo u baahan waa psychological iyo safety.
the more managerka uu leeyahay oo safety-gida iyo shaqaalaha iyo magaciisi psychologicalka uu ka daboolo, the more ay satisfaction ku noqonayaan shaqadooda. qofkan waxaa siisa lacag oo ku filan ayaad siisay, wuxuu ku yiri aniga 20 waxaad tiri $150 ku siinaya bish, markaas wuxuu ku yiri $150 aniga uma filna, waayo $50 waalidkan siiya, $50 waxaa ku bixiya xaafadii, $50 kiradii aan ku bixiya, marka iguma filna meesha waxaas ku jira jaamacadan wadaa, marka 50 igu dar ayuu ku yiri. marka 50 igu dar ku yiri ayaa waxaa tiri ila shaqeyso anaa kuugu dari doona ayaa leedahay. isla markaa la fadhiyo uma dareyso, waxaa leedahay ila shaqeyso oo kuugu daraya balan wadaas, shaqadaada saad u wanaajisid ayaan kuugu daraya. isla markaa waxaad gelisay motivation aad gelisay, marka qofkan wuxuu isku dayaa shaqadiisa inuu dardar geliyo, as more as shaqadii dardar geliyo lacag uu sii dareysa. this is your bonus aad leedahay, bonuskaaga weeyaan. bonus waa dheeraadkii oo qofka la siinayo lagu motivate gareynayo, intaan aad leedahay yani meeshaas haba waxaad ka aragtay meesha uu ka liita ninkan, meesha uu ka liita. marka maalin walba waxaad isku dayaysaa inaad qof ka baysa iska dhigaysa, oh masha Allah si fiican ma shaqays bishaan, bonuska waa kana. so employee wuu jeclaanaya marka, aad iyo aad u jeclaanaya. marka the more employee aad motivation ku samaysid, the more they satisfaction noqonaya. marka Maslow intaa ayuu leeyahay xooga saaraya. Maslow hierarchies saas uu bilaabo, marka meeshaas uu ka bilaabo hierarchy waa kana raada, marka Berman kana hierarchy marka wuxuu leeyahay labadan dadka halaga xaqabtiro, iyagaaba motivation iska galaya oo soconaya way dhaqaaqaya. okay, soo wadi doona insha Allah. Assalaamu calaykum.